intii arintii loolanka siyaasadeed ka dhacday doorashadii aan soo dhaafnay ka dhacday Eldaas inaan maxkamadda racfaanka geynay maxkamadda racfaankana ay go'aan soo saartay weegan soo dhaafnay taasoo ahayd in ay go'aan soo saareen in ay dhaheen waa kadib dhacnay waqtigii appealku waa kadib dhacnay taa awgeed in ay sharci ahaan ay keeskaas ay geli karin oo afka qalaad lagu dhahaa we have no jurisdiction to hear the appeal arinta iyada ahayd go'aanka asaga ay ma ku qancin waayo qareenkayda iyo anigaba arintii maan ku qancin waynala ahaan waysay waxaa dhacday inaan haddana racfaan kale ka qaadana on aan Supreme Court waad ogtihiin xaqan u leenahay qaynuunka Kenya ayaa qoraya handaa maxkamadda racfaanka wixii ka soo yeeray haddaan ku qanci waynay inaan racfaan kale ka qaadan karna tii ayadaheed waxaa dhacday inaan u gudbina Supreme Court-ka cabashadayna sidaas ogsantihiin maxkamaddan aan ku soconno waa rabitaanka shacab weynaha reer Eldaas wixii ka dhacay waad ogtihiin dhibaatada ka dhacday dilka ka dhacay boobka ka dhacay in qalabkii lagu coday kulli la gubay maxkamadda sare iyo tii racfaankana kolley nin kasta waa ogyahay wax ka dhacay annaka oo ka shidaal qaadanayna shacabkeenna iyo rabitaankooda waxaa noo muuqatay inaan arintan aan ka herin ilaa Supreme aan ka tagno waana ballan aan hore u qaadnay inaan xaqdaradan aan ka fadhiisanayno waxaan aaminsanahay in xaqayna aan heli doono shacabkii codeey oo dhibaatada ay ka soo gaartay oo codkooda la boobay inay xaqooda ay heli doonaan aan Ilaahay ka baryaynaa shirkadda iibinta iyo kireynta guryaha iyo dhulalka ee Triple A Properties haddii tale ay kugu xumaato taah iyo tiiraanya la tiicaysay soo jireen baa yiri wax la helo haddii la haleeyana la halo talaa jirtee aan kula taliyay tilmaamtayda raaco ha turanturoon shirkadda Triple A waxaad ka helaysaa kireynta iibinta iyo suuqgeynta dhulalka isteetiyada iyo apartmentyada guryaha ay ku fududeyn karaan si aad ugu tamashlayso waxay ku kala yaalaan xaafadaha Eastleigh, Parklands, South Sea, Syokimau, Nairobi Metropolitan iyo ismaamulada kale ee Kiambu, Murang'a, Kajiado iyo Machakos. Dhulalka iibka ay ku hayaan waxay ku yaalaan Kagundo, Eastern Bypass, wadada Thika iyo Mombasa Road. Shirkadda waxay iibisaa dhulal iyo guryo la hubo mulkiyadooda iyo lahaanshahooda iyo heshiis sharciyadiisa u dhameystiran tahay. Tunisia iyo Uganda iyo Tripoli iyo Togo, Soomaali dhammaanteed talo waxay ku gooyeen shirkadda Triple A Properties anfacday la yaab kale degdeg aan u gaarno wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir eber 7 2 eber 9 eber 8 6 9 5